waxaa loo baahan yahay laaba in isula hadalno ummadda Soomaaliyeed waxaa jira maalmahan xalay iyo maanta waxaa ku soo koray magaalada dad dhaqan Mooryaaneed leh oo guryaha jabsanaya oo dadka dilaya oo isu aad moodo inay ku soo hoos gambadeen waxyaabihii maalmahan jiray marka xagga madaxda ah waxa baabulaya waxaan rabnaa inay ogaadaan in ay u naqa karaan gabaad dad aan ayagu aysan maamulin oo aysan ogeyn oo ka tirsanayn oo discipliin iyo sharci nidaam lahayn oo magac Mooryaannimo ku socda waxa kale oo gabaad u naqa karaan argagixisadii horeba noo soo naafaysay haddana dhibka nagu haysay oo Al-Qaacida iyo Daacish horaan u soo joognay way aragaan u nahay marar badan in dad is-abaabulay oo magac sheegtay magacahaas hoostooda inta lagu shaqeeyay bulshada Soomaaliyeed lagu baabiiyay loogu gabaad loo noqday haddana waxaa noo muuqata in ragga wax abaabulaya aysan ku xisaabtamin inay gabaad u noqon karaan dad aan ku jirin gacmahooda oo aysan maamulin oo aysan birri wax ka maqlayn haddana ay magacooda ku socan inay inta ku soo hoos gambadaan ay bulshada wax yeeli karaan waxaa nooga sii daran oo aan rabaa inaan aad u adkeeyo in Al-Qaacida iyo Daacish oo wadanka aan ognahay dhibaatada ay ku hayaan meel kasta oo abaabul aan sharci ahayn oo midka dawladda ka baxsan lagu qabto inay gabaad u noqon doonaan ay ummadan wax yeeli doonaan ragga hadda dhahay dawladdan ka soo horjeednaani ay dhici karto hadhow intay ayaga gacmahooda iyo farahooda wax ka baxaan inay ayagu gadaal naga soo maraan ay dhici karto arintaas aadan uga digaynaa waan ku celcelinaynaa dawladduna ciidanka ay hayso iyo mas'uuliyaddeedu waa ku filan tahay inay magaalada gacanta ku qabato ha yeeshee bulshada in lagu dhex dagaalamo ayaa la diidayay waxa loo nabadooninaayay oo Prime Ministerka iyo madaxweynaha iyo inta kale mas'uulaba ay ugu baaqayeen nabadda waxay ahayd in aan bulshada lagu dhex dagaalamin in xilligan Ramadaanka ah bulshada aan la qaxin in aan dhibaato dhicin ayaa gacmaha loo laabtay laakiin waxa hadda soo badanaya falal muujinaya in loo baahan yahay in laga hortago falalkaas yaan gabaad loo noqon dad aan discipliin lahayn oo sharci aqoonin oo aan la maamuli karin haddana aan maamulnayn in gabaad loo noqdo in aad la isaga ilaalin u baahannahay ummadda Soomaaliyeedna mar kale reer Muqdisho oo la hadlayo nabadii ay u soo rafaadeen oo u soo dhibtoodeen si fudud yeesan gacmooda uga siibanin si fudud yeesan uga siibanin dawladdu waxay u tureysay bulshada in lagu dhex dagaalamo ayadoo Ramadaan lagu jiro xilli cibaado xilli nabadeed waxa dib ugu filnaa argagixisadaas kala dib ugu filnaa marka laakiin waxa soo badanaya dadkii aan ka waramayna ayaa xaafadaha ku soo badanaya inay guryaha garaacaan dadka inay qaxiyaan inay dhahaan laga guuro meesha in ay dadkii guryahooda ku askeeyay inay joogaan inay dhibaateeyaan inay biliqaystaan inay dilaan arintaasi jid xun bay nagu wadaa marka aad iyo aad aan uga digaynaa aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh